Salaam Somali Bank waxa uu had iyo jeer u taagan yahay kor u qaadista iyo dhiirigelinta ganacsatada Soomaaliyeed. Bankigu isaga oo taas ka duulayo ayuu maanta ku doonsiiyay ganacsatada yaryarka ah ee ka howlgala gobolada dalka Soomaaliya lacag cadadeedu tahay $241,000 Mareykanka ah. Ganacsatadaas ayaa isugu jirtay qeybaha kala duwan ee ganacsiga sida bagaashka, khudaarta, daawada, dharka, spare partska iyo wixii la mid ah. Adeegyada Qardul Xasanka ee bankiga ayaa ah mid ku saleysan kobcin maalgelineed oo aan faa'iido soo celin bankigu ka rabin. Cabdifitaax Maxamed Odowa oo ah madaxa barnaamijyada Salaam Somali Bank ayaa tilmaamay xilligii la aasaasay bankiga ilaa maanta inuu barnaamijkan ku baxay lacag ilaa $20 milyan, taasoo ay ka faa'iideysteen ganacsato Soomaaliyeed oo gaaraysa ilaa 35,000 oo ganacsato. Salaam Somali Bank waxaa la aasaasay ama dhidibada loo taagay sanadkii 2009 bishii Oktoobar. runtii burburkii dawladda dhexe ee kadib waa bangigii ugu horeeyay islaami ah ee laga howlgeliyo ama ka howlgalo dalka Soomaaliya. runtii wuxuu ku soo shaqeeyay marxalado kala duwan oo kala nooc ah waana runtii bangi marka loo fiiriyo bank dalka ka jirto waa bangigii ugu da'da weyn oo ugu khibradda badan marka dhan walba loo fiiriyo. wuxuu ka soo qayb qaatay dib u dhiska dalka iyo dadka intaba. Qardul Xasan waa lacag maalgelin oo bangiga ugu talagalay inuu ku kobciyo ganacsatada yaryar small business-ka ah oo bangiga ugu talagalay inay ku kobciyaan ganacsigooda si ay u gaaraan hadafkooda. runtii bangigu waxyaabaha uu sidaan u sameynayana mar walba waxa waaye in laga wada faa'iideysto oo dhanka bangigana faa'iido ugu jirto dhanka adinkana faa'iido idinku jirto sababtoo labada dhinac waa isu baahan yihiin. marka runtii waxaan rabaa inaan kula dardaarmo in maanta meesha aad taagantiin insha Allah sanadka soo socdo maanta oo kale inaad ka wanaagsanaan doontaan oo ganacsigiinu sidaan uu ka sii ballaarnaan doono insha Allah. ugu dambeyntii qaar ka mid ah ganacsatadii ka faa'iideysatay maalgelinta Qardul Xasanka ayaa u mahadceliyay bankiga Salaam Somali Bank. waxaa mahad ballaaran leh oo inaan marka hore aan u mahadcelinayna waajib nagu tahay Allaah macbuudkan abuuray ee meesha isku keenay awoodan meesha isku nimadan siiyay. Allah mahad iska leh mar koobaad mar labaad mar saddexaad Allah mahad iska leh. bacda banka Salaam horena waan ugu qaatay Qardul Xasan hadeerna waan diyaaraan u ahay marka waxaan u mahadcelinayaa banki Salaam sida wanaagsan ee uu wax noo amaahiyay ayaan ugu mahadcelinayaa mar koobaad mar labaad. ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa wixii aan qaadanay inuu ilaahay noo barakeeyo aan kuna soo celino muddada loogu talagalay. awalan Allah mahad iska leh mar labaad waxaan mahadcelinaynaa bankiga Salaam maalgelintiisa Qardul Xasana. aniga waa markii ugu horeysay magaceyguna waa Leila Cabdirasaaq. marka insha Allah ilaahay waxaan ka rajaynaynaa sidii nalkuugu dhiibo xoolaas annagana ilaahay noogu soo celiyo insha Allah. Allah u tala saaranaynaa marka waana ku mahadsan yihiin bankiga Salaam ilaahayna nabadan ku calfano isaga soo celinaalna siiyo insha Allah. waxaan maanta u imid meeshaan inaan bankiga aan lacag ka qaato Qardul Xasan ah. bankigana aad iyo aad ayuu ugu mahadsan yahay arrinta uu ii sameeyay. arrintaas oo aan uga leeyahay inaan farsamo ku sameysto ganacsi ku galo hadduu Ilaahay yiraahdo ayagana Allah u barakeeyo meesha ka bixin wax qeyr qaba Allah ugu bedelo anigana wax qeyr qaba Allah iga siiyo insha Allah. waxaan rajaynayaa sida ugu dhaqsiyaha badan oo waqtigii ii qabtay inaan ka soo hormariyo ama waqtigeeda ku jaangooyo sida ay caawiyeen oo ay taakulayeen bankiga Salaam Bank oo ku mahadsan yihiin aad iyo aad ugu mahadsan yihiin. awalan waxaan u mahadcelinayaa Allah subhanahu wa ta'ala ii suurtageliyay inaan ka qayb noqdo ka mid noqdo markii labaad ka qayb qaatayaasha qaadanayay deynta ama Qardul Xasanaha. waxaan sidoo kale Ilaahay ugu mahadcelinayaa inaan ka mid ahay macaamiisha Salaam Bank aad u isticmaasho. markii koowaad oo ka faa'iideystay alxamdulillah si qurux badan oo u bixiyay deynta. marka labaadna waxaan rajaynayaa inaan ka faa'iideysan doono oo ku sii horumari doono ganacsigayga inuu Ilaahay sidii si ka qurux badan iga soo qaadanayo waan rajaynayaa 100 mar iyo ka badan u mahadcelinayaa Salaam Bank.